casrigan dambe dhalinyaradu waxay isku soo adkaysaa maxay salaada gaaban laakiin teenan gaabane kolley sunnada ma waafaqsana waayo sunnadu waxay ahayd maxay in la dheereeyo nebigu intuu salaad galay ayuu saxaabiga ku xidhay dabeetana muxuu akhriyey albaqruu akhriyey markaasuu ali cimraan akhriyey markaasuu haddana nisaa akhriyey waa imise jis waa ragcad uun hadda culamadu waxay yidhaahdaan waxa qiimaha samaynaya waa inta aad ilaahay hortaagnayd zamanka yaa ayuha almuzamilu qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu aw zid calayh maxaa la xisaabinayaa waqti ragcada lama xisaabin waxa la xisaabiyay inta timeka aad ilaahay is hortaagayso markii laga warramay salaaddii nebi daawuud maxaa la xisaabiyey salaad waxa u fadli badan buu nebigu yihi tii daawuud tukaday markuu cabdillahi bni camar wuxuu sharxayay maxaa la yidhi nus seexo habeenkii oo thuluthka oo haddana waa waqti idan zaman bay meesha ku xidhantay imise aad ilaahay hortaagnayd waqtiga aad ilaahay hortaagnayd ama 36 salaadood tuko ama 3 salaadood tuko ama 5 tukaaday ku jirta inta tukanaysa laakiin imise aad taagnayd taasaa muhiimka ah haddii waxaynu taaganay ba ay isku noqdaan marka la isku dardaro nus saaca aynu sunnadaynu waafajinay umalayn maayo inay sunna saa ku waafaqayso